Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada jaalka maalmaha. Waxaan idiin soo gudbaynaa qiso aad u xiiso badan isla markaana ay ku sugan tahay waana iyo cibro qaadasho. Qisadan ayaa waxay dhex martay nin iyo xaaskiisa. Ninkan ayaa Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka arsuqay zawjo wanaagsan. Zawjadan ayaa waxay ahayd qof aad baari u ah isla markaana ah qof Allah subxaanahu wa tacaala ku xiran. ninkan iyo naagtan ayaa waxay isqabeen muddo 20 sano ah, waxaana Allah subxaanahu wa tacaala ku arsuqay wiil iyo gabdho. ninkan ayaa wuxuu ahaa nin aad u shaqo badan, mar waliba naagtiisa wuxuu sii jiray lacag ku filan. hase ahaatee ninkani ma uusan ku qanacsaneen nolosha ama waxyaabaha xaaskiisa u karinayso. maalin waliba markii raashinka u keento isagoo aan qanacsaneen ayuu ka tegi jiray, wuxuuna ku tuhmi jiray xaaskiisa inay tahay qof lacagta uu u dhiibo mar waliba waxyaabo kale ku qabsato. markii raashinka loo keeno ayuu wuxuu dhihi jiray, maxay tahay raashinkan, lacag fara badan ayaan kuu dhiibaa maalin waliba, sideed waxaan igu soo karisaa. hase yeeshee naagtani waxay ahayd qof aad u aqli badan, isla markaana waxay samayn jirtay cudurdaar iyo waxyaabo ayay ku qancin jirtay sida ay ku wada noolaayeen. hase ahaatee ninkani ma uusan qanacsaneen. maalin maalmaha ka mid a isagoo ninkan shaqada ka soo laabtay ayuu wadada wuxuu ku galay shil, waxaana ku dhacay dhaawac aad u daran. isla markii waxaa loola caaray isbitaalka. markii la geeyay dhaqaatiirtii arkeenna waxay yidhahdeen ninkan wuxuu u baahan yahay qalliin degdeg ah, haddii kale waxaa dhici doonto ninkan inuusan mustaqbalka socan doonin isla markaana naafo noqon doono. waxay yidhaahdeen waxaa loo baahan yahay lacag fara badan. ninkii markii loo sheegay lacagta looga baahan yahay aad ayuu u naxay, uuna murugooday, maxaa yeelay ma uusan awoodin lacagtan faraha badan. Allah ayuu baryay isagoo dhahayo, allow awooddiida waad og tahay, tabarna ma lihi, waxaan kaa baryayaa inaad arrintaani faraj ii furto. waxay ka bacdi isagoo meesha ka jiifo ayaa dhaqaatiirtii u soo galeen, isla markiina waxay geliyeen qolkii qalliinka. ninkii waa la qalay, qalliinkiina waa lagu guulaystay. Allah subxaanahu wa tacaalana waa uu ka badbaadiyey dhibkii looga baqayay. ninkii isbitaalka ayaa laga soo bixiyey. markaasaa waxaa dhacday muddo ka bacdi markii uu raystay ninkii oo ka soo caafimaaday ayuu shaqadiisii ku soo laabtay. hase yeeshee ninkani wuxuu isweydiinayay qofka lacagta ka bixiyey oo wanaagga jecel isla markaana culayska haystay ka dulqaaday. ninkani ma uusan fahmin qofkaasi, balse muddo ka bacdi wuxuu isku dayay inuu raadiyo qofkani. maalin maalmaha ka mid a ayuu wuxuu ka soo laabtay shaqada. markaasuu wuxuu ku fikiray inuu tago isbitaalka isla markaana uu soo ogaado qofka lacagtaa bixisay. isbitaalkii ayuu tagay, markaasuu weydiiyey qofkii lacagta ka bixisay. markaasaa waxaa lagu yidhi qofka lacagta bixiyay waa xaaskaaga. aad ayuu u yaabay, isla markiina cara ayuu dareemay, dhiiggii ayaa karay. wuxuu ku fikiray xaaskaaga xagee ka keentan lacagtan faraha badan. uu soo cararay wuxuu yimid gurigiisa. markaasuu xaaskiisii u galay jikada iyadoo ku jirto. markaasuu wuxuu soo qabsaday midi, uu ku yiri naagtiisa, qoorta ayaan kaa goynayaa, haddii kale waxaad ii sheegtaa meesha aad lacagtan ka keentay. xaaskiisii waxba uma aysan jawaabin, balse waxay u yeertay wiilashii wiilka ugu weynaa ee ku tiri, hooyo aabbaha u sheeg meesha lacagta lagu qalay laga keenay. wiilkii ayaa u jawaabay aabihii oo ku yiri, aabbo lacagta lagu qalay waa lacagtaadii. aabihii ayaa yaabay, isagoo la yaaban wiilkiisa hadalkiisi ayaa wiilkii hadalka sii watay. markaasuu wuxuu ku yidhi, aabba ha yaabin, maxaa yeelay mar weliba waxaad ahayd qof sheegasho badan. hooyadii ayaa ka sheegan jirtay oo mar weliba waxaad dhihi jirtay raashinka adii keento raashin wanaagsan ma ahan. balse hooyadii waxay ahayd qof caqli badan isla markaana sabar badan. lacagtii aduu siiso biilka ayay qaybna dhigi jirtay, markaasay lacagtii aruurisay. lacagta maanta lagu qalayna waa lacagtii biilka laga qaadi jiray qayb ka mid a. taas ayaana maanta keentay in dhibaatadii kugu dhacday Allah subxaanahu wa tacaala oo naga badbaadiyey. aabihii ooyin ayuu la fadhiistay, wuxuuna garan waayay wuxuu yidhaahdo, maxaa yeele mar weliba ma uusan ahayn ruux xagga wanaagga u fikiro, balse wuxuu u fikir jiray si qaldan oo wuxuu aaminsanaa in xaaskiisii lacagtii ka cuni jirtay. hase ahaatee ugu dambeyntii waxa u soo baxday xaqiiqda waxay tahay. markaasuu cudur daartay ku yidhi, waan qaldamay ee halay saamaxo. xaaskiisii ayuu u tegey oona ku yidhi, waan kaan gardaranahay ee waxaan kaa barayaa inaad iska kay saamaxdo. xaaskii sidii ayay ku cafisay. sidoo kale wuxuu yidhi, waxaan hubaa Allah subxaanahu wa tacaala
inuu isiiyo ama igu arsuqay zawjo wanaagsan maxaa yeelay haddaysan ahaan lahayn iyada maanta noloshan ma soo gaarin. Markaasuu wuxuu bilaabay inuu duceynayo. Qisadani halkaas ayay ku eg tahay. qisadani waxaan ka faa'iidaynaa waxyaabo badan. noloshu ma ahan mar waliba inaad u fikirto dhanka xun kaliya, balse waxaa wanaagsan inaad ka fiirso dhanka wanaagsan. qofkani waxay ahayd qof mar waliba ka fikiraysa sidii ku horumar leed reerkeeda iyo awlaadeeda. hase haatee ninkani ma uusan ahayn nin niyad wanaagsan. wuxuu mar waliba ku fikiri jiray in lacagtiisii si qaldan loo cuno. sidoo kaleeto haddii Allah subxaanahu wa tacaala ku siiyo zawjo wanaagsan, Allah u mahad celi. maxaa yeelay qofka wanaagsan mar waliba waxay ku horseedaa nolol iyo mustaqbal wanaagsan. sidoo kale haddii aad hanti haysato, hantidaada iyaysan noqonin mid aad adiga keli ku tagrifasho, balse waxaa wanaagsan mar waliba inaad reerkaaga iyo awlaadaadaba ay ka warqabaan xaalad aad ku sugan tahay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha, fadlan subscribe dheh gamalekan riix si ay kuu soo gaaraan waxyaaba cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.